dadka qayb baa inta la siiyey aan dhaqaaqi karayn qaybna waa haaf baa gaaray marka gabdhahan soo fakada ilaahay haaf uga dhigay iyo maagan quraan waxay akhristeene adiga marka dig waa caadi baa u laqdayba isagii baaba kaa dhaxadlayaba ninkii baaba kaa dhaxadlaya maradu goormaa ninkii noqotay niyo hadda walaal ma fiyoobido ogiye ma fal baad soo cabtay ma fal baa lagu siiyey waa maxay waxaan dhowr iyo tobanka qof oo kooxda ka midihi aysan ku dhiiran karin oo aad ku dhiiranaysaa adigu nafududo ma fiyoobido ogiye ma furta laga dhuuqay afhayeen nin universal cameraman ah buu wuxuu u noqday afhayeen hadduu gabariba hadday la soo hadasho isagaa u jawaabaya ma fahmi karo sababtaa wax ku khasbay ma garanaya wax daba dhilif qof uga dhigay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad iga dheeganaysaan waa barteennii waa bartii aan ku kulmi jirnay waa laakaha midhiyo baro aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin meel kasta oo aad naga daawanaysaan waxaan leenahay walaala jira oo jooga waa caafimaad qabnaa idinkana waxaan idiin rajaynaynaa sida iyadoo kale inaad caafimaad qabtaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuc xasaasi ah aad iyo aad u xasaasi u ah runtii waa gabdhaha Soomaaliyeed waxa jira wax aan rag muuqa rag baa laga wadayaa ilaahay qadartiis waxa jira dadku waxay u qaybsamaan labo rag iyo dumar qayb waxa jira dharka ragga sita laakiin dumarka la googoosta kuwa la xintama kuwa la ficiltama kuwa dumarka ay ka tustay oo shaqadoodu tahay waxaan la yaabay nin aanu aad saaxiib u nahay weliba aan jeclaa oo nin macquul ahaa ayaa wuxuu u soo bambaxay inuu noqdo afhayeen nin universal cameraman ah buu wuxuu u noqday afhayeen hadduu gabariba hadday la soo hadasho isagaa u jawaabaya ma fahmi karo sababtaa wax ku khasbay ma garanaya wax daba dhilif qof uga dhigay ninka la yiraahdo muxuu ahaa Bosbas ayaa wuxuu yiri jilaageena ayaa wuxuu yiri babies baa jira buu yiri babies waxa la yiraahdaa eeyda yar ka ah tiraahdo yiri macnaha eeyga weyn buu yiraahdaa macnaha mahmaahdiisa waa la yaabanaa waa wax uu ka yaabay marka ninkan kaameramanka ahi waa sixiroole waa nin aad dadka u sixira dadka maskaxdoodu sixraa ninkan aan hadda ka hadlaya waa khadar waa nin abwaana waa nin wax garad u ahaa waa nin macquul ah waa nin runtii anigu aan ku ogaanin daki ah wax kala garanaya inuu yahay ma garanayo marka nin baa waxa laga sheegay war hashuumaankayga gadaya mamaasaar bay laqday waxa ku kalifi kara hooyo marwa ah oo caruur leh inuu yiraahdo waa lagu wasaa inuu afkiisa kula bareero wax ku kalifi kara waxaan aaminsanahay ninkaasi xeer waa reer mudug xeerka qabanayana aad buu u garanayaa laakiin inuu hooyo marwa ah oo dumaashidiis ah oo hooyo ah oo gabar Soomaaliyeed ah oo sharaf iyo qiimo Soomaali dhexdeeda kale oo la yaqaan in uu yiraahdo bal waxaan ila dhageysta wuxuushka ah marka laga duubay ilaa adiga waa laga duubay fiidiyo baa laga duubay fiidiyo markaa ku soo biirtay miyaa lagu isticmaalay wax ma yaqaan ku tilmaamo in aan wax magarad ku tilmaamo waa iga mutaystay laakiin waxaan aaminsanahay saaxiibka uu cudur daaraya waxaan ugu cudur daaraya waa sixran yahay injineer baa helay waxa la yiri hindi baa u fadhida injineer baa helay injineerka saaxirka weyn baa helay oo gabdhihii Soomaaliyeed qaaq kaga siiyay wallaahi billaahi tallaahi dhexdhexaad baan uga hadlayay war gabdhahani maxay sheeganayaan baan uga hadlayay laakiin markaan taa arkay waa u dul qaadan waayay sababtoo ah haddii ay gabar isqabtaan gabar kale dad kale u soo adeegsanaya dad kale ba hadlaya isaga lama arko dad kale
war dadkan maxaa ka hadlinaya ummadda lacag waa la siiyaa yurub baa la joogaaya cayr baa wada qaadataane dadku cayr bay qaataan qaybna waa shaqaystaane ciidina cid uma baahne waay sabab baa dadka ka qaylaysiinaysaa lacag baa la isa siiyaa dee ma dhici karto waxaan lacag ka weyn baroortu orgiga ka weyn nin baa laga sheegay war hashu maankayga gaday mansaar miyay laqday see wuxu jiraan maxaa ka qaldan waxa la yaab leh 4 gabdhood baa ka hadlay ninka 4 gabdhood baa ka hadlay uu dhibaato u geystay isaga hortii meeshii lagu dhibaataynayay ma joogin meeshay ku wada hadlayeen ma joogin meesha isku qabteen ma joogin anigu intaan ka ahay buu ka ahaa Sweden baan joogay isaguna wuxuu joogay Manchester shaqo kuma lahayn meesha ay wax ku duubayeen meesha ay filimka ku wada duubayeen meesha ay ka hadlayeen meesha ay barnaamijyada ka wada hayeen waxay ahayd magaalada la yiraahdo London warbal ninkan sixran anigu waxaan u arkaa saaxiibkay waa sixran yahay wallahi saaxiib waa sixran tahay wallahi waa sixran tahay inaadan caadi ahayn haddaadan sixranayn bal like iyo dislike isu fiiri imisa dislike baa haysataa maxaa ka qaldan see ummadda Soomaaliyeed bulsho sidee kugu wada caayi kartaa bal commentiga lagu soo qoray akhri waxaan ku tusayaa haddaad commentiga akhridid waxaan ku tusayaa inaad sixran tahay inaadan fiyoobayn baan ku sheegayaa commentigaaga akhri inaan ku caaya ma rabo inaan kugu fogaado ma rabo laakiin anigu waxaa dhan waxaan kugu soo koobayaa saaxiibkay waa abwaan saaxiibkay waa waxgarad saaxiibkay waa nin caqli badan baan ku ogaa laakiin waa la maraysa wuxuu soo qaatay fanaaniin badan tusaale ahaan lama rabo qofka bini aadanka ah ma aragteen shiikhii muxuu ahaa rusheeye waa ka baxaynaa meeqaa tihiin 7 nahay oga cuncun ma jira ha halkaa ma laga hayaa maxaa ku helay macnaha qofkii ma aha waa laga dhex hadlayaa marka saaxiibkay waa laga dhex hadlayaa ma aha isagii sababtoo ah isagii markuu hadlayo waa markuu fahiimo la fadhin jiray walaashan fahiimo markuu la fadhin jiray kartidiisa taganimadiisa haybadiisu markaasay caadi ahayd marar kale oo dambe uu haldi jiray xataa ceeb muu lahayn laakiin gabdhaha Soomaaliyeed YouTube channel baa leedahay YouTube channelkaaga adaa iska leh lakii xaaji u aysaday YouTube leedahay ma ahan inaa ku tiraahdid tani YouTube bay leedahay Faadumina YouTube bay leedahay ilaan xaraga YouTube bay leedahay muna muhiim YouTube bay leedahay ma ahan YouTube waa la wada leeyahay waa sax waa run laakiin maxaa ku tusay maxaa u soo qabsan weeyday Imraan waa leeyahay Dirsal Cabdi waa leeyahay Asad Xaajiyo waa leeyahay Xasan Toob waa leeyahay maxaa u soo qabsan weeyday YouTuberadu waa badan yihiin maxaa 4 gabdhood ku tusay waxay cadayn u tahay in laga dhex hadlayo qaqaaq in laga dhex leeyahay marka waxa jiray hortaa dad laga dhex hadli jiray laakiin laga baxay qofka jimba ku jira fariiro bidix ka bax sunnah quraan mal wariyo qul wala waa baxayna waa baxa qof sidii oo kale dad baa jiray sidaas oo kale looga dhex qaylin jiray dad baa jiray sidaas oo kale looga dhex hadli jiray laakiin dadkii laga dhex hadli jiray oo ninkani waa jin ahaan uu inta u soo galo uu ka dhex qaylin jiray taqaaq ka dhex dhigi jiray hadda dadkii waa ka baxay qof walba waxay ku leeyihiin mid walba oo iyaga kamid waxay ku leeyihiin waa sixranayn isma ogeyn waxaan markaan samaynayno ismaana ogeyn marka aad iyaga isla hadlaya Faadumina iyo Lakii oo isla hadlaya maal muuqaalkooda ma daawad caadi mayno ahayn waa sixranayn waliba maalintaas layna siiyay bay taagan yihiin maalintii malmalka bay tiri baa layna siiyay adiga marka Manchester marka ka soo wareegtay baa lagu siiyay baan u malayn waxaasaad qabtaa waxaasaa lagu siiyey war saaxiibow rag saaxiibaa baan nahay waa isu jirnay waa kaa nahay wallaahi waxaan ku arkayay inaad tahay nin qiimo leh nin abwaana nin sharaf leh laakiin caamilnimada aad baan uga xumahay inaad noqotid shaqaale qof qayrka ah oo aad gabdho walaalahaaya oo sharaf iyo haybad iyo hanaan leh oo marwooyin ah marwooyin caruura leh oo la qabo qaybtooda hadaan la doono yaan la qabin laakiin marwo Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed oo sharaf leh oo gabdhaha Soomaaliyeed
gabdhaha ugu caansana inaad caydid waxa kugu kallifi kara waa xanuun waad sixiran tahay walaalow isquraan saar walaalow isquraan saar sidan kuma fiyoobid nafududo na fiyoobidoogiye ma furka laga dhuuqay islaantii haanta u heesaysay haan laba qaalin kula buubtay laba qaar lagu kala jaar geljira ku qoraansay nafududo ma fiyoobido ogiye ma furta laga dhuuqay hadda walaal ma fiyoobido ogiye ma fal baad soo cabtay ma fal baa lagu siiyey waa maxay waxaan dhowr iyo 10 qof oo kooxda ka midihii aysan ku dhiiran karin oo aad ku dhiiranaysa adigu waxa jira qolo kooxda ka mid ah oo anigu aanu wada hadallay oo warar xataa ii soo diray oo la wararkaas faafi oo aan ka diiday sababtoo ah in lagu adeegsado waa laga fiican yahay qofka waad waraysan kartaa channel haddii uu youtubernimadu ay kaa tahay lilaahi iyo daacad London baa wada joogtaan waad waraysan kartaa anigu kuwa asxaabtaada abaan la hadlaa waxaan idhaahdaa war ninkaa lambarkiisa isiiya dadka sixraya maanta ka hor sixroolo ma qirin inuu sixroolo yahay laakiin maanta markaan arkay muuqaalkaaga waxaan aaminay khadarkii aad taqaanay khadarkii aad garanaysay khadarkii aad mar walba wada hadlayseen khadarkii aad ogayd waryaa ilaahay yaqaan khadarkii aad taqaanay oo gabdhaha Soomaaliyeed agtiisa ay cisiga iyo sharafka kala haayeen khadarkii aad taqaanay oo gabdhaha Soomaaliyeed u hadli jiray oo xumaantoodu dhibi jirtay waxa maray wax yar maaha a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim baan leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baan ka magan galay in loo adeegsado sixroolayaasha hindida oo London degan waa wax ilaahay laga magan galo way walaalka caliya marka istaba qabo ha u arkin inaan ku dhaliilayo ha u arkin inaan ku maagayo laakiin gabar Soomaaliyeed marwo Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed in aad laga duway filimka markaa ku soo biirtay miyaana u isticmaalay oo afkaaga aad kula dhacdid waad sixran tahay kuma oran karayo sababtoo ah laba qof ma kala tiid isla kii aan aqaanay baa tahay ninkii aan aqaanin wax kala garanayo ah laakiin qofku de isagoo caadi waa lagu dhexdhacay marka kaameramanka sixirkii uu ummadda kula dhexdhacay buu kula dhexdhacay wallaahi inaadan dhamayn waxa hadalkayga ku cadaynkoogu ah oo aad isku ogaan kartaa inaadan dhamayn ee sixran tahay waxa la yiri magaalo waa madal inta joogtaana waa marxaanti magaalo waa madal inta joogtaana waa marxaanti xaqiiqo waxa ah bal ilaah baan ku dhaariyay commentiyada adiga lagu soo qorayo bal fiiri adiga commentiga lagu soo qorayo bal fiiri dadku ma aha inay dad waalan yihiin dadku waxay arkaan xaqiiqada dhabta ah sida wuxuu jiraan waxa saxda ah oo dhacaya bay arkaan marka haddii ninkii aan aqaanay aad tahay ninkii reer mudug ahaa aad tahay ninkii gabdhaha Soomaaliyeed ceebtooda ka sariigan jiray oo aan aqaanay haddaad tahay commentiga dadku kuu soo qoraan baad akhrin lahayd markaasaad isgaran lahayd xataa haddii wax kaasi noqdeen oo macnaha qalad u jiro qofku bini aadanka waa qaldamaa wax qalad hadday iskaa tuseen oo meel qaldanaad wax ka aragtay markaasaad waxaad samayn lahayd inta aragtid baa isdhihi lahayd war gabdhaha waa u geftay commentiga ku sixi lahaa hadalka dadku kuu qorayaan iyo dislike-gan lagu saarayo baad isku sixi lahayd laakiin maxaa waxaan kaa qarin karaa waxa kaa qarin karaa waxa weeye waa hindida loo tegay biyihii
limit bayan u yeelin dadka qayb baa inta la siiyey aan dhaqaaqi karayn qaybna waa haaf baa gaaray marka gabdhahan soo fakaday ilaahay haaf uga dhigay iyo maagan quraan waxay akhristeene adiga marka dig waa caadi baa u laqdayba isagii baaba kaa dhaxadlayaba ninkii baaba kaa dhaxadlaya maradu goormaa ninkii noqotay niyo goorma adigu ninkii noqotay aniga hadda gabdhahaas igama dhaxadlayaan laakiin waxaan ku leeyahay gabar Soomaaliyeed oo sharaf iyo haykal iyo hanaan iyo haybad Soomaaliyeed leh oo ah dadka inaga hooyadeen iyo walaasheen iyo gabadheen aynu ku faano gabdhahaas ayaan u damqanayaa oo damiirkaygu isiin waayay inaad maalinba mid ku soo tuftid oo maalin walba mid soo caydid oo maalinba mid aad wax laga xishoodo weeye wax laga xishoodo runtii ma doonayo inaan kugu xadgudbo laakiin waxaan rabaa inaan wax kuu sheego biliis muuqaalka aad soo dhigtay oo aad ku aflaga dad baad waxa leedahay waad maxkamadaynaysaa maxkamad adiga waxa kuugu filanba iyadoon maxkamad kale iyo sharci lagula tiigsan waxa maxkamad kuugu filan commentiga Soomaalida maxkamad ku saartay Soomaalida baa maxkamad ku saartay oo commentiga ka qoraya gabar Soomaaliyeed waa hooyo gabar Soomaaliyeed waa hooyo waa ayeeyo waa walaal waa eedo waa habaryar waa dumaashi waa sado maxaa ka qaldan niyahow maxaa ka qaldan haddii aad gabdhaha Soomaaliyeed aflagaadaysid hal gabar marka aflagaadaysid gabadhaasi hooyay noqonaysaa waa ayeeyo bay noqonaysaa waa dumaashi waa marwo nin qabo waa gabadhaadii oo kale waa sadohda hooyada macaan waa habaryarta waa eedada dadka kugu xeeran oo Ilaahay kugu xeeray bay gabadhu ka mid tahay ma u quurtaa isweydii hooyada ma u quurtaa ina caydid ilaa gabdhahani waa hooyooyine caruuray leeyihiin waa adiga caayayahe cay hooyada ma u quurtaa maxaa ka qaldan war walaalo waa iga talo wallaahi haddaadan isogayn waa laga dhaxqaylinayaa haddaa fiyowdahayna in laga dhaxqaylinayo waxaad ku fahmi karaysaa wax kala maaha waxaad ku fahmi karaysaa commentiga waxaad ku fahmi karaysaa dislike waxaasoo dhan baa fahamku ugu filan tan kale waxaan rabaa inaan qodob yar kuu sheego marka aad soo qaadanaysid Faadumina YouTube bay yeelatay Laki Xaaji Wacays YouTube bay yeelatay dadkan oo dhan aad u danaaninaysaan baad Soomaali ku leedahay YouTube bay yeesheen adigu ma waxa diidan tahay qof inuu ka xoroobo oo isagu iski u shaqaysto teeda kale ma ogtahay Laki Xaaji Wacays ina YouTube-ka aad sheegaysid isaga kan kaga horeysay ma ogtahay wareeniyada inay kaga horeysay ma ogtahay maxaa ka qaldan booba filmis goor muu lahaa dib u raac bal tag eeg goorma la asaasay kan adigu aad u sixran tahay goorma la asaasay bal isu fiiri waa adiga la YouTube bay hadda yeelatay ma jirto waxaasi dadku YouTuber waa ahaayeen waana ahaan doonaan waana ahaan jireen teeda kale qofku inuu qof ka xoroobo waa wax meesha ku jira qodobkaasina wuxuu kugu ahaa qalad gabdhaha Soomaaliyeedna ha uga hiilin eeg laba gabdhood markay isdirirayaan ina u kala hiilisid waxay kugu noqonaysaa sharaf darro dhaqan baynu lahayn waxaynu lahayn dhaqan iyo diin dhaqankeennii markaa dib ugu noqotid haddii gabar iyo ay nin isqabtaan waxaynu naqaanaa gar iyo gardarraba gabadhaa saxan ninku waa qaldan yahay dhaqankeennii wey waa dhaqankeennii ma aha aniga hadda Imraan waxa aan keenaya maaha wax anigu aan bilaabayo maaha waxa adigu bilaabi kartidna maaha waa wax abka farac aynu u lahayn iyo sinji iyo asal meeshaynu ka soo jeedna aynu u lahayn oo ahaa yaa gabar iyo wiil hadday isqabtaan yaa qaldan wiilka horta qaladka la saaraya dhab la qabanaya gabadha kadib baa hoos loola hadlayaa naa ninka ka xishood naa maxaa kaa qaldan naa dumar baa tahay markaa kadib baa la dhahayaa okay ninkii gabar wax yeelaa muxuu noqdaa marka caaq baad noqonaysaa marka inaad caaq noqotid oo magacaagaba caaq lagugu yeero oo aad qof uu kaa dhaxadlo waa laga fiican yahay wallaahi waa ka xumahay mana aaminsanayn mana islahayn
noloshaada inta ka dhiman baad wax noocaas oo kale ku arki doontaa walaalkay baa tahay waa kaa naxayaa ka noqo muuqaaladaas aad dadka ku aflagaadaynaysid oo dhowrka ah dib ugu noqo channelkaaga ka saar qofku bini aadankaahi waa qaldamaa markuu qaldamana waa ki isgar muhiim waxaa marka gabar Soomaaliyeed inaadan u gafin sharafkaaga maaha haybadaada maaha tagnimadaada dhumaysa waxa hadda anagu aanu ka aaminay baa Soomaaliya oo dhan ka aaminsan tahay ina adiguna sixir cabtay oo sixirsan tahay oo barkinta kuugu jiro ama lagu cabsiiyey ama maaragtay lagu walaaqay baa meesha ka muuqata oo aadan dhamayn marka walaalo waa ku naseexaynayaa intaasaan ku soo gabagabaynayaa waxaan leeyahay Soomaaliya gabdhaha u heeliya inta badan gabdhaha waa la dulmiyaa qayb gardaran waa jirtaa laakiin inta badan waa la dulmiyaa awal waxa lagu dulmin jiray luuq gabar baa reerkoodu bahdili jireen nin bay ku khasbi adigu qaladaad badan baa gabdhaha guryahooda dhexdooda laga gali jiray ama rag ka gali jireen si dadban laakiin hadda bareerkan gabdhaha loo dulminayo haddii aad Soomaaliya ka damqan weydaan waxay noqonaysaa ayaan daro inaan ka damqanno oo ka hadalno oo youtuberadu ka hadlaan waa munaasib intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nooli kulan